ambasador cabdirasaaq meecaad oo ka mid ah siyaasiyiinta qurbajooga ee reer Somaliland oo maanta waraysi gaar ah siinayay TV-ga Saab ayaa ugu horeyn baaq u diray maamul goboleedka Puntland uguna baaqay inay ilaaliyaan wada noolaanshaha iyo jaar wanaagga isla markaana ay joojiyaan fadqalalada ay ka wadaan deegaanka Tukaraq. dhanka kalena waxa uu ka hadlay dalka Somaliland iyo khayraadka ku duugan waxaan ugu baaqay bulshada reer Somaliland in ay ka faa'iideystaan khayraadka dalka yaala. Somaliland colaad ma baahna. Somaliland intii ay jirtay waxay ku jirtay nabadgelyo waad ogeydeenoo de khaatimo iyo SSC iyo kuwii ka horeeyayba wada hadal bay u furtay. taas waxay ku cadaynaysaa inaan Somaliland wax dagaal ah aan diyaar u ahayn ayna ilaalinayso de maaragtay xasiloonida dalka taa Tukaraq nabadgelyadana waan jecelnahay inay Somaliland nabadgelyo lagu wada noolaado waxaan jecelnahay xuduudahana de arintaas waa arin ciidan weeye waayo anigu xagga hadaan eego ciidanka de wixii dhaqdhaqaaq xuduudaha ah de iyaga awood u leh dalku meeshii wixii waxay u baahan yahay maalgash wuxuu u baahan yahay international maaha jablayaal in lala cararo oo de wax yar lala cararo wuxuu u baahan yahay shirkado rasmiya oo maalgashada waa in la ogaado xataa dawladda laftigeedu ay ogaato waxaan la iibinayo waxay yihiin shirkad baanu samaynay waxaanu keenaynaa rag khubaro ah oo inoo baadha waxaanu keenaynaa rag aynu suuqgeyntii wakiil inooga noqda trademark maaragtay adduunka inugu xidhmo xitaa noocyo kala duwan maaha dahab oo kaliya macdano badan oo kala dhifrana ayaa ku jira dalka. wasaaradda macdanta waxaan ku taakulayn lahaa inay eegto shirkadaha imanaya qiimaha ay leeyihiin inay ogaadaan de ma garanaysaa waxaan la gurayaa volume intee la eg ayuu dalka faa'iido u leeyahay iyo maxaynu ka faa'iideynaa marka horta marka hore waa in sahankan maaragtay la baadhaa. ganacsiga kale waxaan leenahay de waa inay wax legal sharci ah wax sharci sita mooyaane waxaan sharci sidan in la xakameeyaa.